nabad ardayda meel kasta oo nagala socotaan halkani waa Somali Academy hadii la yiraahdo waxaan halkii ka sii wadi doonaa casharkeena ama course-keena aan wadnay research-ka wana runtii casharkii saddexaad ama lesson 3 weeyaan runtii waxaan mar walba jecelahay hadii aad wax su'aalo qabtaan ama runtii aad qabtaan concern ku saabsan ama runtii faalo ku saabsan saan wax u bixinayno casharka runtii ha moogaanina nagala soo xidhiidhaan dhammaan runtii yani ciwaanada halkan inoogu yaala si aynu wada xidhiidhno wixii commentiisa ama wixii su'aalaad qabtaan markaasi insha Allah maanta waxaan casharkeena ka bilaabi doonaa hadda ka hor waxaan ka soo hadalnay problem identification-ka habkii problem-ka loo identify gareyn lahaa sidoo kale waxaan ka soo haranay inay kala duwan yihiin problem-ka iyo research problem-ku problem-ka caadiga ee research problem-ku markaasi waxa kale oo ka soo hadalnay markaasi title-ka iyo qaabka loo qorayo iyo title-ku waxyaabaha uu ka kooban yahay haddii markaa title-ka soo dhameynay hadda right now waxaan ka hadlaynaa research background wax la yiraahdo waa in yacni technically aynu gacanta la galno research background-ka bilowno markaasi oo ah macnihii halka koobaad ee laga bilaabayo research-ka oo haddii aad proposal-kii yani marka ugu horeysa waxaad qoraysaa waa proposal whether ama ha ahaado markaasi research-kaasi project ha ahaado funding aad ku doonayso amaba ha ahaado markaasi thesis oo academic runtii variables ha ahaado laakiinse yani waa halkan ka bilaabayna background oo foundation-ki weeyaan marka research background-kan ka bilaabi doonaa waxaynu runtii ka bilaabi doonaa definitions-ka iyo runtii concepts-ka ku saabsan markaasi research background-ku muxuu yahay research background-ka waxaa loo yaqaanaa is the foundation waa yani asaaska weeyaan asaaska macnaheedu waxaan ujeedaa waa halka wax ka bilaabmaan oo marka haddii aan research background-ku jirin study-gaaga kalena waxba kama jiraan because research background-ku halka ku fahmaya qofka reader-kii wax badan oo ku saabsan research-kaaga markaasi marka halkaasi waxay noqonaysaa markaasi asaaskii asalkii bay noqonaysaa sidoo kale waxaa la yidhahdaa research waxaa la yidhahdaa waa is the basis waa runtii yani foundation and basis it's me waa runtii areas kumid oo marka halkii uu ka bilaamayeen markaasi kusoo runtii aynu asaaska uga dhigaynay study-ga aynu bilaabayno weeyaan markaasi waa process-kan halka koobaad aan ka bilaabayna markaasi sidoo kale qodobka labaad wuxuu ina leeyahay research-ka markaad eegto research-ku is rational research background waa is rational yacnihi macnihi waa maxay waa it's logic or evidence waa halkaynu kusii bixinayno process-ka uu raaci doono dhammaan study-geenu kelmadda rational maxay sheegaysaa waa logicna macnaheedu waxa weeyaan yacnihi steps-ka wuxuu maro si uu result u soo saaro that's a logic bale haddaan idhahdo 2 + 2 is equal 4 يعني resultiga 4 waxay siinaya waa maxay waa 2 loo geeyay marka background-ka markaad joogto dhammaan study-gaaga process-ka ay marayso waxay ku cadaanaysaa maxay background-ka ku cadaanaysaa waa objectives-ka ay tahay questions-ka hadday tahay hypothesis-ka hadday tahay statement of the problem cause aad u describe garaynaysa ay tahay definition-adii uu ku fahmay qofku oo dhammaantood markay tahay marka waxaa la yidhaha waa rational baa loo yaqaana ama evidence waa halkii caddaynta aad kusii dhibaysa ama method sidii uu raacayay study-gaagu just oo markaasi justification u adee oo runtii cudurdaar oo ah runtii why by problem-ka loo create gareeyaan why baa loo runtii la doonaya in loo xaliyo markaasi marka justification-ka koobaad oo marka background-ka wuxuu noqonayaa markaasi rational ama evidence wax logic ah halkii steps-ki aad maraysay markaasi qodobka saddexaad wuxuuna leeyahay markaad eegto foundation research background-ku wuxuu ina siiyaa indication oo tacniin macnihii tahay study-gana maxay ka hadlaysaa markaas haddaan background-ka imaka bilaabo oon qoro oon kadibna bilaabo markaan qorayo aan bilaabayo runtii factors baad ka hadli doontaa qodobadaasina waa kuwa ugu muhiimsan ee study-gaaga u sameynaya boundary xuduudda aanad ka gudbi karin whatever importance-ka ay kale qodobada kale yeelanayaan uma baahnin waxaynu ka hadlaynaa specific factors haddaan markaasi ka hadlayo waxbarashadii yani specific area-dan doonaya inaan address gareeyo qodobka koobaad labaad saddexaad afraad afarta qodob baan ka hadlaya afartan qodob baa markaa isoo saari doona whether is jiro saameynaya inaan jirin that's my boundary markaasi study-ga boundary-ga uu leeyahay waa markaa indication-kan ka hadlayo haddaad dhaqaale ka hadlayso haddaad business-ka ka hadlayso dhammaan waxay leeyihiin maxay study-ga waa inay yeelato maxay markaasi specific area
oo inay ahayn markaasi mid open oo iska furan oo runtii wax walba aad ku darsan karto markaasi macnaheedu waxa weeye indication bayna siinaya factors aan ka hadalno markaas haddii researchka concepts background research background concepts intaan kaga gudubno waxaynu gudbaynaa paraboska loo sameeyo parabos of research background yani technically markaad u egto yani sababaha loo ujeedooyinka yani research backgroundka markaad egto inagoo mar dhow dhex geli doono qaabka loo qorayo markaas hadda ka hor saan soo sheegnay waxaa la yidhahdaa research background wuxuu abuuraa wax loo yaqaano focus buu abuuraa focusku waa maxay waa ponder waa xayndaab buu abuuraa oo markaa backgroundka markaan qorayo waan kusii cadaynaya waxaan ka hadli doono oo dhan dhammaantood marka daa xayndaabkaa weyn haddaan mar dhow markaa chapter 2 soo gaadho ama 3 ama 4 ama 5 aan soo gaadhana kama hadli karo area ka baxsan waxaan research waxaan ku sheegay background marka waxaan background ku sheegay waa xuduudeedu waa focuskii markaas marka muxuu leeyahay it creates the focus of the study waa pondering buu abuuraa qodobka labaad wuxuu leeyahay paraboskiisa ka mid ah paraboskiisa qodobka labaad waxaa la yidhahdaa waa waxa ku tusaya characterka iyo nature of the problemka يعني dabeecadda iyo asliyan problemku halkay ku runtii salka ku hayso marka in contextka markaad u eegto problemka in contextka halkay salka ku hayso waa maxay waa marka area aad ka hadlayso markaas haddaan educationka wax ka qorayo on primary wax ka sii qorayo haddaan secondaryga wax ka qorayo yani area ka sii hadlaya ma area ka hadlaya ma waxay ma quality-ga ma waxaan ka hadlaya management-kan ka hadlaya yani marka area-da aan ka hadlayo markaad eegto nature of the problem waa area-daas marka isaga in tusayo in yani backgroundku halkaynu ku tusayno readerka ku faahfaahinayna waa bartaas markaas sidoo kale characterka dabeecadda ay leedahay character markii macni waxaan uga jeedaa hadda ka hor waxaan ka soo hadalnay qodobo inaan ka hadli doono oo specific u ah researchkeena characterkuna waxa la yaqaanaa waa maxay waa kuwaasi because of haddaanad characterize gareyn karin research background researchkaaga ama study-gaaga haddaanad characterize gareyn karin waa asbaabta keenaysa inaad ku dawaqda mar dhow qaabka loo abuuri karo maxay yoolalkaaga ama objectiveskaaga aad u abuuri karto objectiveka aad markaa u samayn karayso qodobka saddexaad wuxuu ina leeyahay yani paraboska ka mid ah waxay ina siisaa markaasi urgency of the problem yani jiritaanka runtii dhibta ama problemka jiritaankiisa yani marka siduu jira yani waa halkan ku cadaynayna inuu jiro problemkan in terms of inagoo describe garaynayna marka problemka isagoo jira baad ability u lahayn inaad describe garayso marka waa in halkan ku describe garayn karto markaas sidoo kale wuxuu keenaa persuasion ama persuade to the funders dadka yani vendorska ama dadka aad ka doonayso inay ku maalgeliyaan researchkaaga waa halka ku sii qancinaysa backgroundku ay eegayaan runtii scale-ka ama magnitude-ka problemkaaga markaas marka paraboska waa maxay waa inuu sidaas oo kale u sii cadeeyo markaasi dadkiina uu ku qancin karo markaa waxayna ugu sii xiga qodob loo yaqaano research background should macnaheedu waxaan u jeedaa waa inuu yani koobsan karo intan waxay sheegaysaa ciwaankan wuxuu sheegay inuu koobsan karo qodobadan soo socda number 1 waa inuu ku bari karo markaas study-ga waa inuu ku bari karo problemka waa inuu ku bari karo qofka readerka ee akhriyaya waa inuu ka dhex fahmi karo qofkan researcherka waxa uu ka hadlayo waxay yani waa inuu fahmi karo markaas asagoo markaas study-gaaga ku haynaya halkaad ka hadlaysay contextka ku haynaya waan macnaheedu inuu wonder ku dhaco runtii adigoo halkan ka hadlaya amaba study-ga qaabkaad u soo daadajinayso ay ka baxsan tahay markaas qaabkii runtii wanaagsanaa loogu talagalay qofka readerka inuu fahmayo sidoo kale qodobka labaad wuxuu leeyahay provide a definition of key terms yani waxayna siinaysaa qeexitaanada dhabta ama fahamka guud ee laga qaadan karo variable-ada aad ka hadlayso maxay yihiin markaas haddaan variable ka hadlayo variable-ka I have to define waa inaan define gareeyo waan u define gareeyo maxay qofka akhrisan doona ama aan u define gareeyo qof dadkaan doonaya inay fahmaan markaas marka maxay waynu koobsanayo waa inuu yahay yani mid dulucdiisu ay ku jirto dhammaan definitionskaas oo dhan oo laga dhex fahmaya markaas sidoo kale waa inuu qodobka saddexaad yani koobsanayo foundationka yani waa inuu dhigayo oo runtii uu asaas u yahay yani runtii dhammaan study-geena oo kale sidoo kale waa inuu faham garanayo readerka waa inuu readerka kusii fahansiinayo runtii halkan backgroundku inuu kusii fahmo dhammaan study-gaaga waxay ku saabsan tahay oo dhan hadduuna expectors ka haysanin qofku ma fahmayo waxaad dambe aad ka hadli doonto markaas haddaynu ka gudubno waxaynu u geli doonaa wax loo yaqaano structure of research background qaab dhismeedka uu yeelan karo research backgroundku research backgroundka markaad eegto horta markii problemka la define gareeyo lasoo
divine lagu sameeyo redivine lagu sameeyo title-ka la create gareeyo ayaa waxaad u fadhiisanaysaa markaas inaad wax qorto wax qoristaasina waa maxay waa inaad structure leedahay oona ahayn markaasi maxay qaabkaad doonto inaad qoriso waxaa dhici karta structure-ka background-keenu inuu ku salaysan yahay institution haddii aad markaa tahay qof researcher oo si free u shaqaynayana waa inaad structure raaci karto oona ahayn maxay qaabkaad aduu jeceshahay u qortan lahaa laakiin waa inuu yani structure waa inuu jiro markaas structure-ka waa maxay qaab dhismeed qalfoof ahaan la fahmi karo study muxuu ku saabsan yahay markaas marka aynu qaabka runtii doonayno study-geena inaynu runtii yani aynu soo define garayno study-geena waa inay noqoto markaasi background structure-keenu waa inuu noqdo ama background structure-keenu waa inuu noqdo waa inuu clearly maxaan ujeedaa yani adigu haddaad wax akhriyayso waxaad jeceshahay sida ugu wanaagsan inaad fahamto markaas sida ugu wanaagsan inaad u fahmi lahayd inaad yani inaad readerkana u fahansiiso markaas qaabkaas oo kale clearly waa inuu ahaado sidoo kale waa inuu objective ahaado objective macnaheedu waxa weeyaan waa inuu ka madax bannaan yahay waxyaaba adiga kugu saabsan oo caadifadaada ah researcher haddaad tahay ama qof arday wax qoraya haddaad tahay waa inuu ka madax bannaan yahay wax adiga kugu saabsan yani information aad ku darsato markaas sidoo kale waa inuu yahay current waa inuu true yahay correct waa inuu correct وين تروي هاي مركز تروي معني waxaan uga jeedaa study-ga sample ka qaadatay halkaad ka soo ururisay labada gooyna ay isleeyihiin macni waa inaad real people dadkii loogu talagalay ka soo ururisay data real problem-ka aad ka soo ururisay situation-ka ku habboon inaad soo ururisay taas markaas waxay structure-keena markaa wuxuu noqonayaa mid saxsan marka hadaba haddii structure-ka yacnihi structure-ka ay doonayno inuu sidaa u ekaado clearly ahaado objective ahaado oo doonayno inuu noqdo markaasi correctly approach-yada loo qori karaa maxay noqon karaan markaas yani qaab dhismeedkaad u dhigi karta markaas oo runtii lagu kala duwan yahay waxaa jira afar approach oo markaasi research-ka loo qori karo background-kiisa markaa oo usii dhigi karto afarta approach number 1 waxaa ugu horeeya wax loo yaqaano four model perspective wax la yidhahdo oo ah ka hadlaya yacnihi afar qaab oo isku xidhan ina number 1 ku bilowdo historical background-ka ood ka hadasho markaasi study-ga historically point of view sidee yacni u eegto oo fariibaladan aad ka hadlaysa yani qaabkay u dhigan yihiin sidoo kale inaad ka hadli karo yani inuu modelka maxay four model perspective tiisa labaad ay tahay theoretically yani inaad sheegi karto theory ahaan sidee iskugu xidhan yihiin fariibaladaada yani relationship-ka ka dhaxay qaabka uu jira markaas sidoo kale waxaa kamid ah conceptually waa maxay yani inuu ka bixinayo faham guud waxa loo yaqaan variablada waxay yihiin oo characterization-kii ay ka mid yihiin definitions-ka ay ka mid yihiin waxa dhan dhammaantood ay ka mid yihiin iyo inay runtii ka dhigi karno markaasi wax loo yaqaano maxay ahayday contextually ay tahay markaasi problemku qaabka markaad kasoo daadajiso in area-da aad ka hadlaysa qaabku yani problemku contextually related way historically theoretically conceptually and contextually oo la isku xiray wax loo yaqaano word perspective model qaabkaasana loo qoraa marka structure-kaas oo yeelan kara structure-ka labaad ee loo qori karaa waxa weeye qaabka loo yaqaano markaasi funnel shaped-ka loo yaqaano funnel shaped-ka waa maxay waxa weeyaan yani qaabkii masafka oo kale inaad kasoo bilowdo problem-kaaga globally oo runtii aad si globally u soo define garayso sidan ay u jirtaa dhibtaas u jirta kadibna aad usoo daadegto continental ama qaarad ahaan aad usoo daadegto kadibna aad usii daadegto markaasi maxay localkii inaad uga sii daadegto markaasi contextkii halkii area-dii specific ah yani wax loo yaqaana qaab wuxuu samaysan yahay funnel shaped marka globally inaan kasoo barno laakiin aan soo dhuubon kadibna until aan imanayo contextka aan imanayo marka funnel shaped baa loo yaqaana modelka saddexaad la qaadan karo waxaa weeyaan the known to unknown inaad ka timaado waxaad garanayso ood usoo durugto waxaanad garanay macna waxaan ujeednaa problemka aduu aad garanaysaa waad define garayn karaysaa laakiin inay jirto oy saameyntani intay leeg tahay ma garanaysid marka waxaad kasoo dhaqaaysaa perspective ah inaad define garayn karto problemkii laakiin u baahan unknown oo ah maxay investigation inaad baadho ood runtii markaa soo bandhigto resultiga modelkaasaad qaadan karta marka qaab noocaas oo kalabaad isagana u samayn karaysaa waa wax loo yaqaano maxay wuxuu leeyahay maxay right in the beginning by the starting the unknown information about the problem and proceeded to point what is to unknown to proceeded unknown about the problem and inaad ilaa investigation kaad ka gaarayso modelka ugu dambeeya afarta model waxaa loo yaqaan integrated model baa leedahay
integrated modelku wuxuu ka hadlayaa isdhexgelinta afartoodaba ayadoo markaad isku dhifan garaynayso qaabka ugu saxsan markaas oo macnaheedu ah markaasi haddaan ka hadlayo historical maxaa yeelay oo modelka koobaada historically haddaan ka hadlayo historicalka qaabka funnel shaped aan u samayn karaa oo ah inaan kasoo dhaqaaqo globally continentally kadibna aan locally imaado saas oo kale problemka ayada lafteeda waxaan ka iman karaa globally continental baan iman karaa ama local baan iman karaa contextkan kasii iman karaa yani waa maxay waa integrated qaabka la isku dhexgeliya afarta model baa loo yaqaana markaas integrated model baa la yidhaha marka way dhici kartaa marka afartan qaybood waxay ku xidhan tahay institutionku qaybta uu qaato sadad wax u qorayso markaasi haddii marka lagu assign gareeyo weynooda academic variables wax u qorayso jaamacaddii waxay iska leedahay model ay raacdo marka modelkaas ma raacaysa sidoo kale haddii aad aduu runtii as a very researcher tahay habka yani modelkeed fahansanteed raaci karaysa aad studyga ogtahay inuu kusoo baxayso maad raacaysa su-aal baa ka taagan oo ah debate yani taagan waxa weeyaan which model is favorite keeba yani ugu saxsan markaas yani no runtii qof walba kii yani studygaasi kusoo baxaya ayaa ugu saxsan waxaan u geli doonaa waxa loo yaqaano research waxa loo yaqaano backgroundka oo inagu horreysiin doono the for perspective markaas oo qodobka koobaad isagu wuxuu yeelan doonaa afartan qaybood number one waxa ugu horeynaya historical perspective number two waxa kusii xigi doona waxa loo yaqaano theoretical perspective number three waxa kusii xigi doona marka waxa loo yaqaano conceptual ama conceptive perspective iyo waxa loo yaqaano contextual perspective oo ka ugu dambeeya marka qaabka waxaad u qoraysaa maxay noocaas oo kale inagoo practically isku leegi doona qaabka loo qorayo markaas markaan dhex galno haddaynu ugu horreysayno historical perspective history waa maxay history waxaa loo yaqaana waa maxay oo wax ku tusaya taariikhda variabladaadu ay leeyihiin in terms of adoo eegaya xilligii hore ee had right now halku taagan yahay marka historically يعني قابك لو قرية technically ورنتي وواحد نحكي لدونا لكن يعني هو واحد كتصيا history قولي فاري بلاد هذه relation كذا حي حدير كذا حي مركا إنه لقى يا رنتي ماشي لقى قرية من قندون تا A V أما D V أما T B وكل بكي كيف وضد دوكتين historically هذا قاعد كرشات كقرية كتر مركا وحولي هو historical perspective short and precise paragraph on relationship between the variables and the investigation historical perspective يعني variable هذا لبارة وباراجراف كوب سنة مركزي historically مركزي تاريخها concept كلا بعد كوسابسن historical وحولي هاي وحكتوس connection development habka problem كانوا صاب لعمل إلا حد راينا وهالكو تاني مركز يوم كبس وقت حكى هذا problem ودن كنا هايست مركز ودن كنا مركز رنتي دور so problem هايست وحلا لاي for the last 5 years وحنا تاجنا هالكا before 5 years هالكا سو تاجنا إما كانوا تاجين ما يتعرف ما كحل قاعد أنت سو تاجنا إما كراينا هالكا تاجين أنت سو صاخرة وصرا وصاقع مركز development بسميه مركز problem مركز in the case وين أنا وحكي قانون investigation سمين هذا justification كي مركز بحنيه مركز كنا درايا مركز evidence كي عدين هذا هايست مركز قدام كسر ده هذا وحنا قنيا concepts كاسي historical background كوحلا لقوري كنا أي فيجا أي فيجا ولا لقوري كنا D فيجا ولا لقوري كنا وحكى له ولا لقوري كنا مركز T فيجا أنت بولا لقوري كنا therefore case بينو قادن دونا إنك وحي أنا بوجيك كوساب سنة master degree مركز ديارني واه effect of a family character on academic performance of pupils in primary schools وها يعني سامينتها كل هاي دبعتها قوسك whatever زودونها هذا قوسك وحنتي أما background قوسك سامينته كل هاي أرضك سب primary كتيرة وحبرش دي سما حنتي performance دي صح برش سامينته كل مركز وحنا حنتي technically نوجد دونا مركز المقال كان يرون يدين صور حنتي يدين دحكلين دونا حنتي قابك اللو قرية مركزي in historically عنو قرية عنو وأنا كقري مركزي primary schools because of family character إنه historically كم قري كرنو academic performance إنه historically كم قري كرنو لكن واحد قري كرنو historically وحلا يقانو primary schools كوضع كان سوسو develop كرو بحال كسب لامي إلا هالكو يمدي مركز sidaan sheegnay case-keen waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa markaasi waxyaanu aan hore uga qoray buugga markaasi buuggaygaan qoray oo ahaa family character sida uu saameeyo academic performance of pupils in primary schoolska marka anigu waxaan ka qoray markaasi historical perspective-kayga waxaan ka qoray TB-gayga oo ah markaasi target population-kaan ka qoray example-ka ay runtii doonayna practical inaad idin tusaana waa kan waana qaabkii aan u qoray markaasi intaa hore waxa weeyaan waa furasho hadalkaan ku furayay markaasi oo ah
ku saabsan educationka iyo faa'iidooyinkeeda ay kamid tahay yani habkay populationka communityga ama dadka u bedesho ilaa halkaasina waxaan kaga hadlaya markaasi maxay ahayday soo bixitaankii markaad eegto waxbarashada oo kale marka ama sidee waxbarashadu soo bixitaankeeda odhan sida waxbarashadu ay yacnihii ugu tahay muhiimadda koowaad ay ugu tahay markaasi dhammaan institutionada hadday tahay dowladda iyo hadday tahay kuwan dowladda ahayn iyo qoysaska oo kale laakiin globally marka historygan waxaanu eegi doonaa globally oo runtii aynu eegayno sidii adduunka runtii ay macnihii usoo develop garowday primary education system marka halkaa kasoo bilowda emergency of public fund primary education system wuxuu soo develop garay markaasi 19th century markaasi ilaa xilliga wixii ka dambeeyeyna Boston buu sameynay sare usoo kacay marka in historical point of view wanaga waa eegay marka 19th century maxaa loo soo degaya marka laga soo dego adduunyada waxaa loo soo degaya maxay continental oo Africa marka Africa sub-Sahara Afrikaad qaadan kartaa East Africaad qaadan kartaa Afrikada kale qaadan kartaa taa doonto kolba marka halkan sub-Saharan African countries baan ku soo qaatay marka waa continental baan soo degay marka waan soo dhuubaya ilaa kontakas ka imaado wixii intaa ka dambeeyay maxaan soo qaatay Somaliland ilaa halkaa markaad eegto waxaan soo qaatay Somaliland since 1991 wixii ka dambeeyay Somaliland waxbarashada primary sidii soo ahayd iyo progresska ay samaysay iyo saas oo kale dhammaantood halkaasi marka waxa ku soo koobmaya historical perspective-ka yacni intii dulucdiisa ahayd intan kasii dambaysa labada layna kasii dambeeya waxa weeye justificationkii oon ku doodayo yani waxbarashada hadda ka hor inaan la samaynin inaan la baadhin xiriir ka dhexeeya family characterka iyo runtii academic performancega bubuliska markaas oo yani xiriir weyn ka dhexeeyaan aanu ku doodaya marka lama baadhin waanana baadhaya markaa saas qaabkaas marka waxaad bixinaysaa justification markaad historically soo dhamayso waxaad ku sii xigsiinaysaa waa justificationkaaga ugu dambeynaysa qaabkaasaad markaa historically u qoraysaa markaas waxaan u geli doonaa haddaan kaga soo gudubnay intaasi theoryga markaa historicalka waxaan u geli doonaa theoretical perspective-ka theorygu waxaa loo yaqaano waa maxay waa fikrad isku xiraysa relationship ka dhexaysiinaysa maxay IV iyo DG-ga oo markaa macnihii ah wuxuu leeyahay theoretical perspective is a description of a theory on which the study is based on theory wixii ay study-ga ku saabsanay gast yani waxaad marka hore mala sii qaadanaysa in xiriir ka dhaxay xiriirka maxaad ku cadaynaysaa waxa ku cadayn doona theory-ga markaas theory-ga definition-keeda maxaa la yiraahdaa it's a well waxaa la yiraahdaa argued ideas intended to explain a phenomenon waxaa la yiraahdaa waa ideas si wanaagsan loo naaqashay taasoo lagu sharaxayo maxaa yeelay phenomena shaygaas whatever buu noqon doonaa anything issue buu noqon karaa laba shay xiriir ka dhexeeya noqon karaa system buu noqon karaa wax doon noqon karaa marka theory-gu waa maxay relation ka dhexaysiinaya laba shay si xiriirka u leeyihiin markaasi qeexaya theory-ga markaad eegto laba qaybood baa loo kala qaybiyay inagoo documentiga website-ka soo gelin doona aad ku arki doontaan laba qaybood baa loo kala qaybiyay qayb waxaa loo yaqaanaa self formulated theory baa oo yacni qofka researcherka asaga abuura laakiin time bay ku qaadataa markaasi inuu theory develop garayo because of waxay u baahan tahay inaad data soo ururiso yacni formulate garayso kadibna datadaas ay soo saarto whether theory is exist or not ama waxay noqotaa adapted oo waxa laga theory hore u jiray baa soo qaadataa kadibna waxaad eegtaa inay matalayso xiriirka ka dhexeeya labada variable labada qaybood bay kala noqon kartaa marka inta badan ardayda marka qorayso waxa wanaagsan kan adapterka laga soo qaato runtii dad hore u qoray si markaasi aad iskaga dhexaysiin karto labadooda markaasi markaad eegto sorry markaad eegto casekeena markaa weli way sii wada doonaa waxaynu qaadanaynaa family characterkii iyo academic performancegii theory-ga qaabkaynu qorayno theory-ga qaabkaynu qoraynana wuxuu noqon doonaa markaasi qaabkan soo socda videogan idiin soo dhexgelin doonaa oo practical ku saabsan oo si wanaagsan ugu sharxi doono because of slideska lama soo gelin karo qoraalkii complete lama soo gelin karo markaasi halkaas aynu runtii ku qaadan doonaa marka theory-gaas yacnihii saan idiin sheegay magac baa loo bixin yani magac bay leedahay cid baa develop garaysay qodobada xagga sare ku xusan baad eegaysaa markaasi inaad marka ugu horeyso qodobadan runtii muhiimadda saarta weeyaan oo identify garayso theory-ga magaceedii authorkii qoray date-ka uu soo saaray markaasi sidoo kale theory-ga inaad sheegto what state maxay sheegaysaa what does it says maxay leedahay maxayna faraysaa sidoo kale waa theory-ga waa inaad sheegto what does it mean wixii macnaheedu iyo macnuhu muxuu yahay
sidoo kale theory inaan sheegno choice of the theory sababtaad aduu theory-gan ku dooratay waa the theory aad u qaadatay maxay tahay sidoo kale inaad qeexdo theory-gan iyo who use it hadda ka hor yaa isticmaalay si scholar yani debate-kaaga aad yani taageero ugu samayso halkan waxaa inoogu yaala formatkaas waa loo qori doonaa this study will be guided by the theory of markaad name of the theory baad gelin doontaa developed by who developed gareeyay name of the author qofkii soo saaray the theory postulate halkaa macal datekii baad raacinaysaa the theory postulate wixii ay noo sheegaysay macnaheedu wuxuu yahay iyo sababtaad u qaadatay ana example-keenii markaad eegto aynu sii wadnay aynu ka dhexaysiinayna xiriirka ka dhexeeya family character-ka iyo academic performance-ga ardayda primary-ga ku jirta kaa markaynu sii wadno waxa weeyaan macnihii labadan aynu doonayna theory isku xidhay inaynu soo saarno markaas marka aniga study-gayga yani example-kan doonaya idiin soo qaado ninka Wilber's theory of educational productivity baa maxay ayaa theory yahayd aniga marka taasaan ku base garay qaabkan u qorayna waa qaabkan markaas adiguna tusaale ahaan qaabkan aad u qori kartaa ama runtii qaab kale model oo qurux badan baad u qori kartaa oo sheegaya markaasi runtii siduu yahay يعني qaabkan waa qaabkii qaabilayay markaa for model perspective markaas this study was guided by waxa gaargareynaya martay basekeedu ahaa Wilber's theory of educational productivity magacii theory wataa developed waxa soo saaray Herbert Wilber oo isagu runtii ahaa qofkii develop gareeyay 1980s the theory status wixii ay sheegaysana waa intaas intan daba waxay noqonaysaa maxay theory-ga macnaheedu theory-ga macnaheedu muxuu yahay markaas ciidda ka soo xigtay ciidda tiri macala citation-kii waa raaciyay qaabka citation-ka waxaa loo qorayna insha Allah waa qaadan doonaa theory-ga markaad eegto was used ciddii isticmaashay halkee kale lagu isticmaalay markaas cid kaloo isticmaashay ma jirta markaas aan wax ku caddaynay qoladaas isticmaashay si scholarly debate-kayga aan u taageero welibana wax badan tahay marka qaabkan ay qorayaan ardayda inay master's degree-ga inta badan qorayaan laakiin walow ardayda runtii ku jirta maxay degree-ga koobaad ayaga laftooda aynu u baahanay markaas inay si wanaagsan wax u qoraan marka ugu dambeysa waxaan ugu dambaysiinaya justification-ka sababtan theory-gan u qaatay maxay tahay this theory marka theory was adapted asbaabtaan u qaatay waxay tahay related to family environment xaggii waxa la xidhiidha maxay qoyska iyo to the student outcome iyo wixii ardaygu runtii maxsuulkii mustaqbalkiisa ahaa marka hadday theory-gu intaa yani ay address garaynayso markaasi waa variable-ladii aan address garaynayay study-gay marka qaabkaas u noqonaya intaan cashar lamida ku kulmi doono waxaan runtii idinkaga tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo rajaynaya inaad wixii su-aalaha qabtaan la soo socodsiisaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu